through the waves. إنه أديك سده مجران حقوق مسؤوليته أنشح كحكمية مرك عدد كلها هالليس واجران waxa la socota Facebook iyo YouTube kaba inay leeyihiin shirkadahaas marka aad isticmaalayso inay iyaga laftigoodu leeyihiin siyaasad kaaga baahan inaad ku xadgudbin oo maxaa ku raahdaa hadaa ku xadgudbo aadan adeegooda isticmaal karin iyo mas'uuliyado gaar ah oo aniga isaaran kuwaas oo ay ka mid tahay inaan maartay dadka war wanaagsan u soo gudbiyo oo waxyaabo maxaa ku raahdaa dadka kala dilaya ama dhibaato ku aanan u keenin marka مسؤوليات وين بأسهرن وأنا أكون صنع مسؤوليته. شنو لكن سيدا أدوكتهاي شركتها استعمال شبره هذا في الصومال كم هاللان وقت دير أي قادنا يسا إن يسوق قبطان وحيابها هوس أتر هذا ندت كصومالي دول بسنة يعني أنا مفهمين. وهم تاوية لكن مركان برتب الشدة أي دد بدن يحريين مدة بدن وقت بدن إنجليزي وحكو خصبنا هاي إن إلى عليو هدي أنا إلى عليو ويكل معلوم بالي قد بيمنيا taasina waxay keenaysaa in la xiro sidoo kale aakhiradeeda iyo sharafteeda inta adduunyada joogo labadaba inaan ilaaliyo baa waxay ka muhiimsan tahay inaan shirkadaha kale maxaan ku rahaa iyaga iska dhaadhiciyo sheena cali aad iyo aad u mahadsan tahay faiza haddii aan adiga ku imaado sidaad u aragtaa hadalka sheena wallahi horta sheena cali anigu fiidiyoyaal badan isagu leeyahay maan aad u daawan laakiin waxa dhacday fiidiyoyaal ugu dambeeyay oo aan daawaday markaana interest waxaan ku noqday inaan eego bal YouTube ku isticmaalo inankan iyo Facebook kiisa saan u arko waxaan la sheegayna run yihiin runtii wax aad u foolxun baan arkay inankan uu sameynayo Sheena Cali hadduu maqlayo kolley waxa weeye dad badan oo kalena way arkayaan waxaad u maleysaa markuu social media soo galay inuu ugu talagalay inuu dadka attack garayo oo kale especially dumarka oo kale yani marka qaarkood dad aragtid waxyaalaha afkiisa ka soo baxaya haddii lagu tarjumi lahaa luqadda ingiriiska oo kale يعني wax weyn baa runtii social media iska bedeli lahaa marka sheena wala jooga waa weydiin doonaa maxaa kamid ah oo adigu wacay ama dad badan kale way ogyihiin hadda labadii video I think about waxay ahayd maybe 6 week ama wax ka sii horeeyay kumid ahayd gabadhii fanaanada caanka ahayd hani UK oo kale uu ku maaratay uu ku cambaareenayo kale wax aad runtii u foolxum oo gabar Soomaaliyeed lagu yiraahdo bay ahayd runtii oo dad badan ay ka naxeen especially markay gabadhu tahay hooyo oo kale marka Sheena Cali runtii waxa weeyaan waa dadka farakutiriska ah ee imika u maleeshada inuu social media u isticmaalayo si khaldan degdeg aan ku weydiiyay hadii inta aan Sheena u tagin xuquuq gaar ah miyaad gabdhaha siinaysaa ama dad kale baad ula jeedaa maya waxa weey xuquuq gaar ah ma siinay gabdhaha laakiin waxa weey social media waxa loogu talagalay in laga faa'iideysto benefit badan buu leeyahay social media siyaabo badan baa looga faa'iideysan karaa business ka laga faa'iideysan karaa marka qaab u socdo laakiin inankaas aad buu qadin Sheena Faiza waxa leedahay dhibaato un baad nagu soo kordhisay aflagaado benefit ka ma hayno iyo wax faa'iido leh waxa weeye waa dhici kartaa mararka qaarkood inay hadaladayda ay wax ka khaldamaan BBC do kale taa wax ka khaldami karaan qofku markuu yahay maxaa ku rahaa qof 24 saac hadlaya hadalla khalada way ka iman karaan laakiin anu waxaan aaminsanahay boqolkiiba 90 waxyaabaha halka la soo fariisto inay yihiin wax sax ah haday dhacdo mararka qaarkood inaan hadalla khalada ama barnaamijyo aan u arkay marka inay khaldan yihiin oo dadka kale dadka waxaan qiimeeyaa falceliska ka bixiyaan aan arko dadku inay ka bixiyeen falcelis ah war halka waa ku siibatay waa ka daba tagaa waxaan ku dadaalaa inaan saxo marka walaashay waxaan u maleynayaa hal video iyo laba video oo aysan iyadu jeclay faa'iiso waxaan weydiinayaa iyada waxay heshay fursad ay barnaamijyadeeda ku soo aragto aniga barnaamijyada ay soo diyaariso fursad uma helin aan soo arko laakiin sida sheegtay waxa jira guur baan ka shaqeeyaa maxaan ku rahaa dadkaan isu doonaa marka gabdhaha Soomaaliyeed waxa weeye marka gabdhaha haray dad guur waaye iyo wiilal guur waaye oo fadhiya bay wuxuu raadisaa dadka gabdhuhu iyaga dadka soo jiita oo shaqaan sameeya
weydiin mayno su-aasha faa'iiso hordhigi mayno su-aal gafa weeyaan mana doonayo inaad ka jawaabto ayadaba haddii aan gabagabadii barnaamijka ayaanu ku soo dhownahay waxyaabaha su-aasheenni waxay ahayd maxaa halkee u martaan in mas-uuliyadda idinka saaran anshaxa waa maxaa kaa saaran adiga markaa baraha bulshada anshaxa waxaa ka saaran qofka markuu wax soo gudbinayo sidiisaba horta waxa weeyaan dadka daawanaya waxay garan karaan qofkaas wuxuu soo gudbinayo baa laga fahmi karaa qofkaas inuu yahay wax qof wanaagsan iyo qof kale adigu markaa social media-da isticmaalaysid benefitkeeda u soo gudbi dadka laakiin haddii qofku uu isticmaalo si khaldan inkastoo runtii 80% dad badan oo Soomaaliyeed iminka xalay video aan daawaday inkastoo halkan laguma soo bandhigi karo wuxuu ahaa runtii very disappointed baa videogaas oo ay dad badan runtii daawaday markaad eegsid intaas boqolaal kun daawanayeen Faiza intaan shiino su'aal degdeg aan ku weydiiyo soo lama oran karo dadka baraha bulshada isticmaala ama adeegsada shiino kale ama adigoo kale in ay dadka siiyaan warbixin aanay ka helin meelaha waaweyn sida BBC-da ama VOA-da dadka anagana daawado way ka badan yihiin dadka BBC-da daawada ma marka qaarkood marka tagtid view-ga xaqiijin bay u baahan tahay مثلا بس ما مركز قاركود بنقول له ما حكينا دتكي أو هرسيد يا دتكي أنتي بدنا استعمال